run ahaantii tani waa xanuun iyo murugo uu ka damqaaday qof kastoo damiir leh. Waa qiso dhammaanba gilgishay social mediaha maalmihii ugu dambeeyey. Waxaa ka damqaday arrinkan kumanaan qof oo baraha bulshada isticmaala. Ilaahay dulmiga ma jecla. Waa qiso maalmihii ugu dambeeyey lisla dhex marayay oo ka dhacday caasimadda Hargeysa ee Somaliland. Waa muuqaalkii bahdilka ahaa ee welibana foosha xumaa lagana duubay inantii yarayd oo qof kastoo jiir damqanaya uu ku yaalo damiirna leh oo ka xanaaqay kana cadhooday. Inta aynan u gelin muuqaalkan, fadlan share garee si ay dad badan wax ugu qaataan. Kana mid noqo asxaabta sharafta leh ee ku xidhan page-kan Nadra Said adigoo like inoo saaraya. Inantan yar magaceeda oo saddexan waxa la yiraahdaa Ayaan Maxamed Yuusuf. Ayaan waxa ay ku nooshahay Hargeysa, taasoo shaqadeeda amba xirfadeeda ay tahay in ay guryaha ka shaqayso ama se ay jaariyad noqoto. Ayaan waa curad reerkooda ugu weyn oo welibana 7 caruura la dhalatay, taasoo laga sugayo ama se faamiligeedu ka sugayaan nolol maalmeedka reerkooda. Ayaan waa gabadh yar oo dhalinyaro ah sida sawirka idinka muuqata. Ayaan weli waxbarasho may soo gelin ama se waxbarasho may soo dhiganin. Danta iyo duruufta ay ku nooshahay ayaa u saamixi weyday inay waxbarasho soo dhigato sida khayrkeed. Waa qiso run ahaantii bilowgeedu murugo badan uu kugu beerayo iyo welibana xanaaq fara badan, laakiin qisada dhammaadkeeda run ahaantii waa farxad. Gabadhan yar ee dulman waxa muuqaal ka duubtay gabadhay u shaqaynaysay oo aan ka fogeyne faamiligeeda ah. Gabadhuna inanta yar ay u tahay eedo. Wax yar ila soo yara daawo fiidiyoga. يا سمينسي على شو فهمينسي ده يا سمينسي ولا ابلي بعدين هذا يقول تمية دون سنة كل شيء فين ولا ابلي انا اسمها الادلاتي ها وان كعدوبه يا وان صور دغيا ما يوربا انت ما يوربا دغيا غوريغان اني قاله يا كسودري ولا ابلي نا يا كسودري ولا ابلي ولا كسودري ولا كسودري ولا كسودري نا ولا كسودري يا كسودري Ayaan Maxamed Yuusuf waa inantii yarayda dulmanayda. Gabadhu waxay ku eedeynaysay ama se ay ku haysatay in ay sumaysay waxna ka xaday. Samsam waa gabadhii muuqaalka ka duubaysay inantan yar. Run ahaantii waxay islahayd eebe oo fadeexade. Dhammaanba baraha bulshadana ku faafi. Samsam markay arrinkan sameynaysay way isla saxsanayd. Samsam iyadaa muuqaalkan gacanteeda ku duubtay iyadoo islahayd wax wanaagsan ayaad sameynaysaa ee baraha bulshada ku faafi oo dhig. Laakiin arrinku saamuu noqonine uu ka duwanaaday. Samsam waxay gacanteeda kusoo boosti garaysay fiidiyoogii taasoo ay soo dhigtay facebookeeda. Qof kastoo fiidiyooga arkayna wuu qaatay isagoo soo dhigaya isaguna oo ka xanaaqay lehna arrinkan waa in si degdeg wax laga qabtaa. Gabadhu waxa ay samaysayna waa qalad. Samsam fiidiyoogii muddo kadib dib ayay uga saartay facebookeeda, laakiin fiidiyoogaasi wuxuu noqday mid dhammaanba dadku ay wada qaateen. qof kastaana ka soo hadlayay. Sida oo kale Samsam hadaladeedii waxaa ka mid ahaa ila yara dhageyso. aad baad mahadsantiid inaad horta fiidiyoogan aad u faafiseen, caalamkoo dhan aad geliseen. waa ka wahadsantiin. waxaan ka baryaa Ilaahay inay ku cibro qaataan naagaha yaryar ee loo adeegsanayo xaafadaha, naagaha yaryar ee la kireysanayo, naagaha dadka ehel u ah ee ka makhruuqsan ee soo diraya oranaya soo dila oo soo xada oo soo sameeya. marka aniga waa naag la garanayo meesha doonaysin geeya fiidiyooga, cidna aanu kama baqayo. halkana cadeyn baa ku jirta inay waxaas oo dhan ay samaysay. inanta yarna waa la wada garanaya, daana waa la garanaya. marka waxaan leeyahay wixii aniga inacibow sii faafiya. Samsam waa gabadh ka timi halkaas iyo Carabaha. xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo arrinkii foosha xumaa Samsam ku kacday inanta yarna tacadiga ugu geysatay ayaa sharciga la hor keenay, welibana taasoo xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ay wax ka qabatay. sida oo kale wasaaradda shaqo-gelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska waxay qaaday tallaabo degdeg ah si loo sugo ammaanka inantan yar, gabadhii kalena sharciga loo mariyo. Ayaan shalay waxay dibana u ahayd haweeney gurigeeda ay shaaqiyad ka ahayd, laakiinse maanta waxa ay ka mid tahay howlwadeenada bangiga dhexe ee Somaliland. Ayaan oo ka shaqo gashay bangiga dhexe ee Somaliland ayaa inantii yarayda ayaan shaqo gelisay. run ahaantii waa arrin lagu farxo. haddaba ayaan shucuurteedu sidee ayay noqotay? arrinkanse maxay ka tiri?
waatane ila dhageystaa. Faraxsan shaqadan siisaan saxiidoon mahad wala mahad celinayaa sida u dhantii dhamaantiin maxaa filisaan arrimaha qoyska oo mahad celinayaa agaadiyad baan ku faraxsan shaqadan siisaan wali kuma nasax kuma soo toosin shaqada sayl doonta alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay mahad celinayaa. Arrinka kale ee soo jiidashada leh ayaa ah ayaan markii muuqaalkan laga duubay waxay gacanteeda ka xidhneyd calanka Somaliland taasoo walibana dalkeeda iyo dadkeedii dhulkeediiba u heeliyeen. laakiin sida uu sheegay agaasimaha guud calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya gacanta ku xidhneyd iyo firfircoonidii ka muuqatay ayuun baan soo jiidatay dabeetana waxay noqotay inaanu ka jawaabno anagoo baanka dhexe ah laga bilaabo maanta waa shaqaalaha baanka dhexe waxbarashadeedana anagu waa ballan qaadaynaa. daawade haddii aad daawanaysay muuqaalka ilaa dhammaadkiisa waad ku mahadsan tahay sharafna korkaaga ha ahaato sida quruxda badan leh ee aad ula socotay muuqaalkan sidoo kalena asxaabtaada u shargaree videogan. Thank you.